wafdigan ayaa waxaa horkacayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdiwaare waxaa qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Marwa Canab Axmed Ciise xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo wasiiro waxaana garoonka diyuuradaha oo Khalifa Laborte ee magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne qaybaha kala duwan ee bulshada reedka inta kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kormeer ku soo maray goobo loo diyaariyay in lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka COVID-19 inta kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa idin ku tagay deegaanka Keliyo oo ah halka gudiga fatahaadaha Beledweyne oo ah dad ganacsato ah ay ka sameeyeen dadaalo looga hortagayo inuu fatahaad uu sameeyo biyaha webiga Shabeelle ugu horeyntii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa goobta ka hadlay waxaan u jeedaa warbixinta guud madaxweyne gurmadka inoo yimid saas uu ahaa kabacdi dowladda dhexe waxa nooga yimid bahalahan hamba kan maxaa la yiraahdaa hal falayda inoo yimid haddana maanta waxa sidana lagu soo wargeliyay 6 falay sida tudaya maanta ee dagaysa oo aan rabno waajibka labaad annaga waxaan dhignay raaca koobaad raaca labaad raaca saddexaad oo kaasa raaca afraad oo injineerku saaka bilaabay ugu dambeyntii waxa soo gunaanaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdiwaare naqshada lagu howlgalayo oo injineeradu ay ka shaqeynayaan annagu dowladda Hirshabelle haddaan nahay dowlad goboleedka federaalku wuxuu u shaqeeyaa wixii naga awood bata inaan dowladda inaan macin aan weydiisano dowladda annaga weydiisanay inaan farsamo ahaan aanan ku filnayn in maxoo ahay webiga hadda aan xirno injineerana loo soo diray saraakiilana loo soo diray madaxana loo soo diray wasiirana loo soo diray in micno kale loo fasiro oo la siyaasaday aadan uga xumahay taas waqti kale aan si fiican uga hadli doonaa waxay injineeradan iyo mas'uuliyiintan halkaan u joogaan kaliya biyahan in la xiran maaha halka waara oo in arintaanu ay mataqaan ay ku dhamaad doontane inay ficilkii ayagoo u jooga naqshadeeyaan waxa xoogaa ganacsatada shaqo fiican ay qabteen amaanay muujiyeen waa la wada sheegay dalka iyo dibadiisa laakiin gudoomiye hal shay aan ku sheegaa ganacsatada lacagta loo dhiibay waa lacag dadka Hirshabelle loogu tala galay amaana loogu dhiibay lacag maxoo ahay aad mahmahdaadi maxay ahayd hooyadaaba weydiisay ka rabtaa ma weydiinaysid hadda tu kala soo socota ayagaan u dhiibaynaa meel kale geyn mayno imaatiga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdiwaare ayaa waxay ku soo beegmaysaa xili dadkii badi ay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne kuwaasi oo ka cabsi qabay inuu fatahaad u sameeyo biyaha webiga Shabeelle Cabdinuur Cismaan Adan Carays Wadan Radio TV magaalada Beledweyne